abwaanku wuxuu yiri jaad cuntay weliga anna ma yaan ku id markaasuu yiri waxbaan kuu sheegayaa marka abwaan maxay ii sheegi lahayd waxaan kuu sheegayaa waxyaalo badan oo jaadka waxaa jira iga soo maray waa garta 46 sano waa cunahay haatana naftu inta igu jira inaan daayo ma rabo abwaan maxaa ku aragtay oo waxaan ku arkay dab xun baa ina goysay beertiisii ninka joogo oo jaadku u baxayo oo barkintiisa u taalo marna aan bargo'aynin kaasaa haysa barwaaqo umana baahna adduun inaan haatan ku biiro bayoodka iska raaco barbarkiisa fariistaa tala iga badnay mar haddaaynu bilowno bahalka shaad la yidhaahdo barkimooyinka dheer iyo busooda kor saaraan barraxaan la tagnaa sigaarkoo bulka siin iyo barraahaanu cabnaa maskaxdaadu bagaata iyo bayaan bay noqotaa boqolaal arrimaahoo awal kuu bixi waayey way soo barraxaan oo baleemaad ku haysaayoo bursiga asagaale inaad boodda haddeer oo birigaanba ka guudho maraakiib badda taagan bartankeeda istaagto madaxweynihii buush iyo biita aad ballantaan iyo baleemo ku tusaayo hawada waa badiyaa bursiga asagaale islaam baadi ahaydoy martaas ugu horrayso oo barkintii odageeda iyo busiyaasha ku siiso boos wanaagsan ku geyso biyi caanaha keentoon baahiba koo goleen oo bilcantaadii aad moodo bursiga asagaale haddaan buugga u baaray boqolaal culummo aha inay diinta bartaan beertaba loogu abuuray lacagtaa ku baxaysa buqaydaan ogolay nimankaa biciga bacallaa wax ka sheega balwad bay geliyeen baadkii awliye weeyo booli jaad ma ahayn oo buugiisa waa la hayaa ilaahu boqorow beerta ay ka jaraan bayroodkaa lagu keeno kuwa beesada dhiiba ilaahu boqorow abalaaya insaanoo berna aysa qasaari mid baa marka wuxuu maqalay dhowr gabay oo aan jaadka xaqiisa ku muujiyey yaa mid buurahaas degan oo aan jaad aqoon xeerkiisa oo iska geelleeya yaa xabad xun oo fashilaa igu soo tuuray oo uu leeyahay birayna jaadka haddaad magac u yeelayso oo ceebihii u mudnaa adigu moosayso muxubbada qabriga yaa qalbiga kaaga soo maqan oo maandooniyoo dhan baan meeyay leedahay buu yidhi haddaan lagu baraadayn baraad meelkasii dhici 2 saal baa marka isku daba dhiga oo u jawaabahayay mid markii hore ula dhacay tan dambana waa ku dhiibtira waxaa idhi marka miirayna jaadka waa lagama maarmaan masaariif ilaa keenay iyo waa maslaxad weyn arrimaha marwarso markii la isku mari waayo barduuf jaad ay soo gataan madaxda waa weyn markaasay marimaluuli meel goboshaa barkimooyin boodin dambe dhega mariya sigaarkii iyo macaasha ay buufta ku hayaa taqsiimaha macquulka markay wada magawstaan wax kastoo maqanaayoo dhan waa muuqanahaya madaxweynayaasha afrika iyo mudana weeyaan haddaan adigu maandoori iyo malakumood mooday balogniba malkaha midag dhigtiyo maafiyaa tahay oo meel uu adduun marayaba waa aad moogtaha allayle adaan mudan maxkamad maanta lagu geey waa lagu maradayn hadduu jira barraxaan buu yidhi xabaddaa marka hore la dhacay waxaan ku dhiibtiray dadka sidiisaba qof waliba sida uu yeelahayaa la fiicana moogta waxaa idhi qof kastoo qaldan maanta waa isla qumanaadaa labana qaban karoo wuxuu wataa qayb u gooniya kuwa isqarxinayaba talada ugu qorxoonta iyagaa naftoodii qarribay qaaliga ahay aqarana qayr uma jiro looma helin qiil qayraadka ee bayba xushiyo quudkana la siiyey inuu jaadku ugu qaarsiya waa la qirayaa waraxdoo harkii kulul haddaad qabatid laantiisa markii aad qalintaa kurtaa bar fuqaada qalbiga jankaago dhan buu qanac ku beer ah arrimihii hore oo kaa qadaga u soo qaban quud awliya wuxuu ah qadar ku dheernaa culummada quraadinkayga waa qadariya haddii aysan qiilkiisa ahayn maba ay qaateen qasaaruu qabaa jaadinkii ka qabsanaada qayrkiisii wuxuu ka haray quburadii oo dhan maskaxdiisa qaaliga ayda qayb dhan baa maqan qaylo lama dayna iyo qarow habeenkiiya qurbajoogga iyo kaga duwanaa sida qariibkii ama awr qabiran oo kale iyo qaalin baadiya qof aad uuntay weeye ilaahu adigu qayrsiya annagana qudaarsiya nocda qoonha noo gelin aamiin